jaamacadda anigu 4 sano aan dhiganay sidee baad u dhiganaysaa isweydiinaysan berigan dugsiga form 1 ka haban dhageystay professor ilaahay ha barakeeyo Saleeman marka isagoo leh weer baan ka guntaday hadalkiisa ahayd inta Soomaalidu is haysato anigu waxaan soo saari doonaa boqolaal kun oo arday oo ka soo saara bulsho dhisan markaas aan waxaan ku tashanay ilaa maalinta inaan jaamacadda galo saan boqolaalka kun oo soo saaraya Saleeman uga mid noqdo dhamaantiina ka mid baatihiin waan idinku hambalyeynaya sidaa daraadeed qiimeyn baa la sameeyay maalmo dhaweed jaamacadaha qaybta caafimaadka waxa kaalinta koowaad gasho waliba jaamacadna aan ku soo dhaweyn jaamacadda Camuud iyadoo ay sidaa tahay baa waxa dhacday in aan isuga wadaagnahay oo Cabdikariin Khadar Xud Beegsi la yiraahdo ayaa waxa igu war Cabdi Nuur jaamacaddii waxa igu sareysay qaybta caafimaadka maxaad ka tiri markaas nin kalena waanu kaftami jirnay isna jaamacad kala dhigto nimba waxa la yiri nimba ceesaanti ceelkeen baa la yiri nimba wixii ku faanay isna aad u faan badnaa dadoo waxa maanta hadii jaamacaddaadu kuwa dalka ugu sareysay ay tahay inaad gabay ku cabirto miyaanay ahayn dabeedna gabay yaro aad ku cabiray wuxuu ku bilaamayaa cirkoo hooray heegada camiran cimir daruurtoo ah asalkoo iswaray iyo dhulkoo bixiyay caagaarka caleen hamasha kaymaha carmada ciirsiliyo waaqla oo cawska iyo dooga baxay caga u quudhaynin ubaxuna xusuusaha baxshiyo midabka cawlaanka hadii duul abaar colosa iyo cabalka soo guuro cindigooda way saaqayaan carafta geeduhu dadka iyaga Camuud aaday baa caynka saaka ah sida ceelashii doolo oo unku ka cabayo oo cirif qalbigu waa caraabay aan idinku daro taariikhda ceel weyn oo Soomaaliya oo dhan ka cabi jirtay ayaa la oran jiray Camuud oo ku yaala oo kamid ah doolo sidoo kale dabeedna waxa igu soo dhacay maskaxdayda waxa ku soo dhacday war laba mid baa jaamacadda magaca loogu bixiyay waa ceelkaas oo Soomaaliya way ka cabjirto Soomaaliya oo dhan cilmiga way ka qaadanaysa waa talabaad waa Camuud oo afariyo waa tiirkii aqoonta oo cirif qalbigu uga caraabayo caam ahaanba Soomaali way ka cilmi qaataan cilmiga iyo aqoon barashada iyo waxa calaamada ciyaar uma gabyayay haddana caynka ka higaasho kuwan caafimaadkii barta iyo cudur daweyntiisa kumanaan shariicada cugtiyo culumadii diinta ku culumta beeraha dhigtiyo ciidda hodankeeda kumanaan siyaasiyiin calmaday caanibiyo maamul kuman cooshka ganacsiga bartiyo cudka iyo maalka kuman macallimiin soo cugtiyo warad aqooneedka injineero kuman cayna oo cudud filkoo dhaafay intaas soo kun wada cayna waan la cilmi qaataaye ciirtaanyo subaxaan wax badan cagaha roorshaye casarkiiyo waxaana la banaa fiidca weysine caqlinimaan dhahayn baa dhex taga meelo caasile Camuud baan dhigtaa beryahan waan cir marayaa Camuud baan dhigtaa beryahan waan cir marayaa sida caanageel baa cilmiga la canqariyaa deegal shiraan ahay markaa dib garanaysa saas oo ugu soo qaad sida caanageel baa cilmiga la canqariyaa waxaan caynka maasada ku xiray ama ku soo ciirshay Camuud bay u tahay oo aqoon iyo u tahay tiir la ciirsada cilmi baadhisyada doorkan iyo cadadka qiimeynta Afrika bay calanka u sida oo caalamka qirey Maxamed Cumar baa yiri sacabkaaga horeyna Afrika inuu horeyna sacabka inoo tuma Afrika bay calamka u sida oo caalamka qirey Soomaalina cadceed soo baxday iyo wacdiyo nuure asiiskan ku dhaartiyo ali caadilka ahaaye casrinimada loo dhigo wax iyo caalim waxa jooga asiiskan ku dhaartiyo ali caadilka ahaaye cidna liminta kuma haysato waa cadeyn qoraan intaasaan ku cabiray farxadda guusha ay jaamacaddu ka soo hoysay qiimeynta waxaan ku soo koobayaa aan idinkaga tagayaa jiftay kooban aqoonta ka hadlayso hal sakin qaadanaysa oo xaajaadan afqalo waxa igu maadu ka afrigayaa bwana hadalkii waa iyaga dhameeyay cilmigu waa daruuri iyo hogol idin daayse cilmigu waa dawada ruuxa indhaha u dilaacshe cilmigu waa dariiq nuura halkaad adigu doontee cilmigu waa kan diinteenu dalba tiro amaantay cilmigu waa kan dawladaha dayaxa u horseeday وبحي dalkayga oo tacliinta u dadaalay kuwa idin la daahbaa dayurada sameeyay idinkuna ku daydo tacliinta u dadaalay dadkiina idin ay wali ariga daaje toohle awrka guuray tacliinta u dadaalay daacad waalideyn iyo daryeel macallimiinta darajada ku gaadhiye tacliinta u dadaalay macdanteena wali dihin jahli baa daboolay dahabka ay idin qodateene tacliinta u dadaalay
duco iyo salaan aan golaha weyn u dirayaan hadalkii ku daayay tacliinta u dadaalay waa maanso waa shiifto waxa jaadan faloo inooga tagay u naxariistay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.